shirkadda Muqdisho Power waxaa la aasaasay 1994 saddex sano ka bacdi dawladdii kacaanka ee dalka ka jirtay markay burburtay waxaana aasaasay Xasan Jaamac la yiraahdo oo hadda jooga gudoomiyaha hadda shirkadda Muqdisho Power magaca lagu aasaasay xilligaas wuxuu ahaa bin Xasan meelihii ay ka soo bilaabatay waxaa ka mid ah Xamar Jariid xafiiskeedu wuxuu ku yaalay على كمين يحرنوا هيد أساس كي مركا نكاس وحكومة فكري إنه جناح الصوماليات أو أدي كورن تبحية إنه صوي ما دام إنسان شرين دولدي ذلك كشرتي أي بربرتي أركتدي وكوفة فكري وهو جولستي حوجرسي معناته إنه شركة وين أي سو جارت تاريخية مركا شركة ده أي سو مرتي أو كلا دوانا waxaa ka dhashay tartan ganacsi oo ganacsiga kala Soomaaliya inay ku dhiiradaan ayagana inay adeeg koronto ka shaqeeyaan korontada markii la bilaabayay oo tusaale ahaan markii hadda shirkaddeenu markii bilaabaysay qayb loo bilaabay ma ahayn koronto 24 saac waddanka ka shaqeynaysa ma jirin magaalada Muqdisho kale markii lagu bilaabay magaalada amnigeeda wuxuu ahaa xaalad ka jiray habeenkii 3 saac ilaa 4 saac marba qayb gaari jireen korontada maanta joogtada lama haysan markii dambe oo suuqii ganacsiga oo shirkaddan Muqdisho Power aragtidii ay keentay laga wada faa'iideystay la qaatana waxay soo noqotay sidoo kale ayaguna in meelaha qaar generator laga dhigo xaafadaha saacado kooban ay shinaa jirtay korontadu ka bacdi annaga shirkaddan waxay gaartay inay 24 saac inay shaqeyso oo marka shirkadda la balaariyay oo magaca Muqdisho Power la siiyay haddii la aado marka suuqii haddii la aado runtii suuq weyn yaa ka jira dalka maadaama dalkii uu baahan yahay adeeg koronto oo dhameystiran ay shirkaddeena hadda meelo badan oo hadda kamid ah gobolada dalka marka laga reebo caasimadda goboladana way u gudubtay qaybo badan oo kamid ah inta kalena waxay u socotaa hayaan iyo ku socotaa qiimaha korontada markaan aan aadno magaaladana ka hadlaya caasimadda dalka 2016 kilowatkii wuxuu ahaa $1 iyo bar horumarkii la gaaray iyo qiimo dhimistii shirkaduhu dadaalkii ay sameeyeen waxay keentay in la gaarsiiyo 0.41 inuu u sareeyo maanta 25na ay u hooseyso oo ganacsiga kala duwan isticmaalka iyadoo ku xiran isticmaalka qofka shirkadda marka Muqdisho Power waa shirkad weyn oo koronto waxay qayb ka tahay horumarinta dalka hadday noqon lahayd ganacsiga hadday noqon lahayd danta guud intaba goobaha danta guud oo kale koronto bilaash inay shirkaddu siiso ganacsiga in sare loo qaado oo warshadaha iyo dhismayaasha waaweyn isbitaalada meelaha waaweyn oo u baahan korontadana inay adeegooda baahidooda inay daboosho shirkadda korontada Muqdisho Power waxay shaqo abuur u samaysay dad badan oo Soomaaliyeed oo qoysaskoodii ayaguba ilaa hadda ay ku tiirsan yihiin shirkadda walina way socotaa shaqo abuurku oo ma ahan mid istaaga oo bil walba iyo maalin walba shaqaalaha wala sii qoraya asle waa shirkad dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin kuna manafacsadeen hadda shirkaddeenu waa inta koronto laga sameeyo hadda inta badan waan ka sameynaa dhamaantood hadday noqon lahayd solar hadday aan lahayd storage in la yiraahdo la kaydiyo korontadii iyo hadday aan lahayd generation motoraba intaasoo qayboodba hadda waa ka shaqeysaa shirkaddu mustaqbalka korontada Soomaaliya ka shirkad ahaan aragtideena waxaan is leenahay Soomaaliya baahi weyn oo koronto ayaa weli ka jirta xaaladaha waddankanaga hadda uu ku sugan yahay iyo horumarka noo muuqanaya marka aan eegno oo Soomaaliya batrool laga qodayo oo maaragtay waxyaabo badan iyo mashaariicda anagu aan wadno oo aan rabno inaan u guurnoba loo guuray tamarta green energy wax la yiraahdo oo laga biyaha laga keeno ama solar system ka isticmaalayno iyo storage-ka lagu kaydinayo kale bateriyaasha dabka lagu kaydinayo 10 sano soo socota waxaan isleeyahay haddii waddankanaga aan dhibaato weyn aysan ka dhicin oo horumarka shirkadaha hamigooda ku jira oo wadno iyo midka dawligaaba iskaashadaan waxaan isleenahay sida Ethiopia hadda daamkii ay furtay oo kala mid lamid in Afrika koronto Soomaaliya laga keenay in lagu iibi doono oo raqiis taasan ka rajeynaa insha Allah